Madaxweyne Donald Trump waxaa laga helay cudurka COVID-19. Trump waa 74 sano jir, mana ahan inaan ka hadalno culeyskiisa. Da'da sare iyo burnaanta ayaa ah labada arrimood ee qofka u galaya khatarta sare iyo cudurka COVID-19. Marka maxaa dhici kara haddii madaxweynuhu dhinto waxyar ka hor doorashada dalka Mareykanka? Sidee ay tani saameyn ugu yeelan doontaa doorashada? Musharaxa cusub ee booska madaxweynaha yoo noqon doona iyo waxyaabo kale oo barnaamijkan aad ku arki doontid. Intaanan muuqaalka gudgelin like share videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-keena dad badan gaarsiiyo. Haddii sidaan oo kale dhici lahayd waxay noqon lahayd markii ugu horeysay sanadii 1912 ayaa waxaa dhacay arrin midaan ku dhow markii uu dhintay musharax madaxweyne ku-xigeen maalmo ka hor doorashada. Laakiin maxaa dhacaya haddii halka uu ka dhintay madaxweyne ku-xigeen oo noqon lahaa madaxweynaha toddobaadyo ka hor intuusan doorashada dhicin? Sidii caadiga ahayd, haddii madaxweyne dhinto intuu xafiiska joogo, madaxweyne ku-xigeen ayaa la wareegi lahaa xilka. Marka madaxweyne ku-xigeen Mike Pence wuxuu la wareegi lahaa doorka taliyaha guud iyo shaqooyinka kale ee madaxweynenimada. Laakiin taasi micnaheedu ma ahan in Pence uu noqon doono musharax madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriyadda doorashada soo socota. Inkastoo noqon lahaa xulashada ugu macquulsan inuu noqdo madaxweynaha cusub ee la soo magacaabi doono, haddana lama hubo. Haddii madaxweynuhu dhinto, guddiga qaranka ee Jamhuuriyadda ayaa ku qasbanaan lahaa inay mar labaad codeeyaan si ay go'aan uga gaaraan qofka cusub ay soo magacaabayaan. Waana hubaal ayna ka soo qaadno Pence. Haddii tani ay dhici lahayd 6 bilood ka hor, xisbiga Jamhuuriyadda wuxuu awood u yeelan lahaa inuu ku daro magaca Pence warqadda codbixinta. Laakiin maadaama ay aad ugu dhowdahay doorashada, ma jiri doonto waddo lagu bedelo waxa ku jira warqadda codeynta. Gobol kasta waxa uu leeyahay waqti kama dambeys ah oo ku soo dejiyo musharaxiinta cusub ee codbixinta. Waqtiyadaasna waa laga soo gudbay. Waxaa jiro faahfaahin kale oo yar. Codbixiyaashii hore waxay hore u dhiibteen codkooda, marka waa halka ugu dhibka badan ee ka imaan karo. Dadku weli u codeyn karaan Trump warqadda codbixinta, laakiin farsamo ahaan waxay u noqon kartaa musharaxa cusub ee xisbiga Jamhuuriyadda Mike Pence. Inkastoo Joe Biden oo tijaabadii ugu dambeysay waxyarun kadib doodii ugu horeysay ee uu madaxweynenimada laga weydiiyay COVID-19, ka waran haddii uu ku dhaco COVID-19 kadibna uu dhinto? Hagaag waxay ahaan lahayd geedi socod isku mid ah. Xisbiga Dimuqraadiyadda wuxuu u baahnaan lahaa inuu magacaabo musharax cusub. Kamala Harris waxay noqon lahayd mid ka mid ah xulashooyinka ugu sareeya, laakiin yaa dhahay Bernie Sanders lama magacaabi doono. Nidaamkani wuxuu mar kale noqon lahaa mid qasan, mid adag oo mararka qaarkood cabsi badan. Dadka Mareykanka ah ee u codeeyay Joe Biden waxaa laga yaabaa inaysan sax ah u ogeyn cidda u codeeyeen haddii wax sidaan oo kale ay dhacaan. Hadda ka waran haddii Trump uu ku guuleysan lahaa doorashada 3 November kadibna uu dhinto waxyar kadib? Hagaag maadaama tani weligeed aysan dhicin ka hor, xaqiiqda waxaa jiro xogo aan la hubin xaaladdan. Wixii ka dambeeya November 3 markii dhammaan codadka la dhiibto, kulliyadda doorashada ee gobol kasta waxay la kulmi doontaa inay u codeyso madaxweyne cusub iyagoo lagu saleynayaa inta cod ee musharax kasta u helay. Haddii taasi ay dhacdo, inta badan gobolada codbixiyaasha waxay u codeyn doonaan oo keliya madaxweyne ku-xigeenka oo loo magacaabay madaxweynaha. Laakiin gobolada kale waxay si gaar ah u sheegeen in codbixiyaashu ay u codeeyeen magaca warqadda codbixinta. Xaaladdan oo kale waxay noqon lahayd Trump. Tani waxay albaabada u furi kartaa dagaalo sokeeya oo bulshada dhexdeeda ah. Laakiin haddii la eego qodobka 2 ee dastuurka wax ka beddelka Mareykanka, waxaa la sheegayaa in madaxweyne la doortay oo uu dhinto, madaxweyne ku-xigeenka la doortay ayaa xilka la sii wareegi doono. Laakiin weli waxaa jiro waxyaabo aan la hubin iyo dhibaatooyin ku saabsan sida tan u ciyaari karto. Dhimashada madaxweynaha ama xanuunkiisa miyuu dib u dhac u keeni karaa doorashada dalka? Hagaag madaxweynuhu awood uma laha inuu sidaas sameeyo, inkastoo uu Koongareesku dib u dhigi karo doorashooyinka. Haddana waa wax aad u fiican inaysan dhicin. Maxay u badan tahay inay dhacdo haddii madaxweynuhu dhinto? Tan ugu dhow doorashada waa in Mike Pence uu noqon doono musharaxa cusub ee Jamhuuriyadda. Haddii xisbiga Jamhuuriyadda uu guuleysto, markaa Mike Pence wuxuu noqon doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka. Laakiin ka waran haddii Pence uu xanuunsado oo dhinto? Waan ogahay, laakiin waa su'aal isweydiin mudan. Hadday taasi dhacdo, markaa afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa la wareegi doonto xilka madaxweyne. Hadday dhimatana waxay u tagi doontaa madaxweynaha golaha guurtiga ee pro tempore. haddana hadduu qofkaasi dhinto kadib waxay hoos u tagi doontaa liiska xogayaha golaha wasiirada.
laakiin maadaama wax sidan oo kale ah aysan hore u dhicin, natiijooyinka way adkaan karaan, mana ogid dhab ahaanta wax dhici doono.